qolan Soomaali diidka ee goosiga ka hadasha ee tiraahdo Soomaaliyan kala goynayna waxa xishood darro ah gobolada ay leeyihiin Ingiriis baa nala xukumi jiray oo isku qoraanu nahay iyo isku mabda baanu nahay waxa xishood darro ah oo indhala'aana oo wax qof bini aadana iyo dad qaran sheeganaya ay ka xishoodaan ay tahay beesha isaaq laba gool bay Soomaaliya ka digaan ama guud ahaan gebigaba oo waliba aanu hadal la'ayn beesha aan anigu ahay iminka ay doonayeen inay ku abiyus gareeyaan gobolada waqooyiga qayb ka mid ah 28 gobol bay Soomaaliya iyo Kenya iyo Itoobiya aan cid u dhaxayn bay ka digaan la isku daro beesha daarad inta ay ka digto inta tan waan cid u dhaxayn Soomaaliya iyo Itoobiya iyo Kenya waa 28 gobol intay gaarka u digan oo Ilaahay ku beeray dadkii inta diganaa oo beesha baa waxay ka xishoodeen inay iyaga ignore gareeyaan inaanu iyaga ignore gareeyaan ka xishoodeen oo waliba karbaashno oo turaalu sameeynay oo niri Soomaali baa tihiin oo dhowr iyo 20 sano idin ku dhageysayna ilaa iyo dawladda dhexe kaan ummad yar oo dalka xuquuqan ku lahayn oo shalay markii Ingiriiska lala dagaalamayay iyagu raashinka u kari jiray aboow ahaa ninbaa wuxuu iga sheekeeyay markii Ingiriisku dalka joogay ayaa waxa la yiri gaalaba wuxuu jaleeladu waxa la yiraahdo isagoo joog maraya baa habeen roob helay nin daraawiisha baa ilaalada kamid ah roobkii markuu doodhaa xaabaha ka helaya qaliyo baliyada ka qayliya meel buu sariir gambara dhigtay qolada la socotay markaa waardiyeen salaam waa qolatan Soomaali diidka reerkiisa reer Burhaan rahiba baliyadii ka qayliyay waa bahal qayla dheer markaas wuxuu yiri rahaasi caaw xabad roob ugu qayl kartaa ma jirto waa seexanayaa kuwii inta yaaceen ayaa hadba balli markuu roob ka qayliyo dhagax lagu tuuray si loo aamusiyo in raha la qaban kari maayo kii darwiishka ay ruuxaasi waa adab darre joojiya waxa kana wada horda seexanati seexo halkii baa dagaal ka dhacay dadkii nooca u adeegi jiray oo Soomaaliya aan xaq ku lahayn wixii la dagaalamayay Soomaaliya gobonimadeeda iyo xornimadeeda rag baa soo dhintay intaas oo kun oo nin baa soo dhintay boqolaal kun oo nin baa soo dhintay boqolaalka kun oo nin waxay ku soo dhintay sharafta Soomaaliya inay dad xor noqoto oo dal caadi ah noqoto gumaysi lagu dagaalamay Ingiriis iyo Talyaaniba kuwii markii waxaasi dhimanayeen raashinka karinayeen oo gaalada raashinka karinayeen garwadeenka waxa basaasiinta waxa oo Soomaaliya aan taariikh iyo abaal iyo amina aan ku lahayn oo maanta awood ay wax ku toojar gareeyaan oo iyagu ay baawar ku sheegtaan lahayn Soomaaliya laba gobol ka degan ayaa dadkii intaasi ka dhimatay oo 28 gobol degan bay waxay leeyihiin qayb kamid ah anaga isku maamul hadii qadarkeeda iyo khasabku islaam waxa looga xishoodo dadka dawladii dhexe ee kacaanka iyo baa isa soo gaarsiisay oo iyagu caayaan dadku waagi hore sida uma wada hadli jirin waa la kala adkaan jiray haddeertana sidii loo kala adkaan jiray baa loo kala adkaanaya kaygii horaana waynu sugnahay qoladiina isaaqeeb TV-yada ka qaylqaylisa ee beenta isaga sheegta ma aynaan murmi jirin isma aynaan la jirin waan ka adkaan jiray dooxooyinka iyo dhulka la dego iyo dhulka islaamku mar xaraan buu idinka ahaan jiray taariikhda adduunka aad ka helaysaan wataad la jirteen sangada yar oo sayxun baray u baxay iyo ku sababina sinta buurtiisa sanaka u maray buurtaas saaraan jirteen waad ugaarsan jirteen ugaadhaan idin diidi jiray ku qabsan jiray oo idinka qaanay jiray aad ogtiin oo taariikhda ku qoran marka dabataan xabada sagarada soo yeeshaan baan idin diidi jiray oo leedinka qaanay jiray dadkii saa idin geli jiray oo inay wax u sii kordhaan mooyaane aan waxba ka dhicin baad maanta waxaad rabtaan inaad u dawladeysaan oo guriyahooda ugu dawladeysaan
anigoo islaama oo Soomaaliya oo daarooda oo dhulbaanta oo shirshoora oo Maxamuud Garaada ma dhacaso gobolka Sool iyo Sanaag iyo Cayn qof haybti garan waaya oo cid uu yahay aan la garanayn oo kiisa uu gibilka laga qaadi jiray oo minority inuu igu dawladda wallahi ma dhacaso billahi ma dhacaso tallahi ma dhacaso والله سلينا يا وانا لا kala adkaanaya sidii loo kala adkaan jiray baan loo kala adkaanaya waxaad ahaan jirteen baa la idin ka dhigaya waxaad ahaan jirteen iimaansada waxa la beenta dii lagu soo celiyo run baa la moodaa feen baa ciyaaladu u sheegteen ummaddu u sheegteen waxay idin hayn baa isku sheegteen waxa doontaan baa iskaga hadasheen taana intaasan ka baxaya dawladda federaalka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed baad u dhaarateen waxa la oran karaa waad ka been sheegteen dhaartaad ku dhaarateen mas'uuliyadda hayseena waa dayacdeen haddaad u taqaaniin Muqdisho iyo agagaarkeeda dawladda dadka aad u dhaarateen atiina TV ka sheego cadeeya dadku waa tashanayaan haddii kalena ummaddan waxaa loo leynayaa ee loogu soo duulaya ee loo qaxinaya ee loo dhibaateynaya waxa weeye Soomaaliya waa mid baan anaguna leenahay iyaguna waxay leeyihiin hadii baqadarkeedii gumaystiga Soomaaliya kala gogoyo waa la gogoynaya maalina joog kama idin oran iyaga lagu lahaa lacag horreysay waa taageeraysan sidaasina dawladdu ummadda ugu noqon maysaan waa la idin doortay ummadda dalka waad u dhaarateen haddii ay gardarka jirtana gardarrada inaad ka hadashaan baad leedihiin oo aad awood iyo afbaad kaga hadashaan haddii la qaadan waayeen cidda qaadan weyday in meel looga soo wada jeestaa loo baahan yahay ma aha inaad tiraahdaan qof Soomaali diida oo takooran oo corruption ku jiritaanka Soomaaliya oo la soo taagan maalin kasta leh oo maalin kasta dalku waa la kala goynaya in maalin kasta la yiraahdo hadii baqad ka xabad joojin baa la sameeyaa ma aha waxaas wax ummadda Soomaaliyeed ka istaahil hadda tihiin dawladda federaalka farmaajo iyo hadda tihiin khayr ma aha wax ummadda Soomaaliyeed ka istaahil waxaan arkay kuwa ka noolule xamar oo leh waxaanu nahay dawladda dhaxaanu ka mid nahay oo hadii baydankeeda goboladaas waa Soomaaliland iyagu waxay ku fadhiyaan 4.5 wayna qirsan yihiin in dawladda Soomaaliya ay muqaddis tahay ay wax kala go'leeyahay jirin reeray ku yimaadeen anaga sabab ay waxaan loogu hadlaan waxa markaa waa naaqusnimo laakiinse rag baa meesha noo joogay iyagoo day waajibkooda ka soo dhawaan iyaga u taala Abdi Wali iyo ninka la yiraahdo dawladda Puntland iyo Cabdi Xakiin waxaan oran lahaa haday dawladda Soomaaliya ay doorkeeda qaadan weydo doorka ay leedahay haday qaadan weydo oo arrinta dagaalka ay ka qaadan weydo xalaal waxaan tarasaa ma jirto wacadkii iyo dhaartii ay gashay iyo mas'uuliyadda Soomaaliya haysana way ka baxday xiriirka loo jaan la sababtay tay iyada inoo jirtay iyada Soomaaliya jiritaankeeda iyo midnimadeeda corruption ku ah iyada cadawga taageeraysa haday ka waantoobi weydo hadalkan jilicsan iyo xabad joojin hala sameeyo oo oran weydo dadka Soomaaliyeedka taga goboladiina waxaad ka hadlaysaa maalin dambe kala hadli kartaan ay oran weydo bulan waxa la xiriirka loo jaro waxaynu uga baahnay ma jirto inaga Soomaaliya inoo baahanta inaga